iyadoo xaaladda dadka ku nool xeryaha qaxootiga ay tahay mid cakiran ayaa xeryaha qaxootiga maalin walba waxaa imaanaya boqolaal qaxooti Soomaaliyeed oo ka imaanaya dalka Soomaaliya sidoo kale waxaa jira boqolaal kale oo iyaguna ka imaanaya dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Ogaden ee Soomaalida Ethiopia waa kuwan qaar kamid ah dadka qaxootiga ka soo barakacay gobolka Ogaden ee Soomaalida dalka Ethiopia oo ka warbixinaya xaaladda nolosha ay uga soo qaxeen deegaanadaasi walaal magacayga waxaa la dhahaa magacayga Maxamed Cabdullaahi Yuusuf baa la dhahaa waxaan ahay maxaan ku dhahay muwaadin reer Ogaden waxaan ka soo qaxay gobolka Dhagaxbuur waxaan wadanka ka soo tagay maalmihii hadda gumaad ku dhacay ee bisha dhexdeedii ahayd bisha qaarkeedii hore si aad la socotana bisha ilaa dhamaadkeeda ilaa bilowgeedii xasuuq ugu socday bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxa la dhahaa Nimco Maxamed waxaan ka soo qaxay gobolka gudaha Jigjiga gudihiisa dhibaatada ka jirta gudaha Ogaden waa dhibaato aad u fara badan oo aan la qiyaas karin kufsi dhac boob iyo maxaan ku dhahay jirdil maxaan ku dhahay marjin intaas isugu jirta aniga waxaan kamid ahaa ardaydii ku dhigan jirtay gudaha Jigjiga iskoolka waxaan ahaa dugsi dhexe sidii aan dugsi dhexe u ahaa waxa la iga jexjexay shahaadooyinkayga dugsi dhexe dugsi hoose intaba baa laga jexay walaalo magacayga waxa la dhahaa Sahara Maxamed Cabdi waxaan ka soo qaxay gobolka Dhagaxbuur waxaan ku suganahay goobta qaxoontiga marka iyadoo iga keentay amaan darro iyo dib aad u xoog badan xeryaha qaxootiga Dhadhaab oo loogu talagalay inay qaadaan ilaa 9,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ayaa ilaa iyo iminka waxa ku nool in ka badan 300 oo kun oo qaxooti ah hay'adda Jumcada Qurumaha ka dhaxaysa UNHCR ayaa waxay ka furtay xeryo qaxooti sanadii 1991 deegaanka Liboy halkaas oo ahayd xaradii ugu horeysay ee dad qaxootiga lagu qaabilo kadibna waxa la dhisay xeryaha qaxootiga Dhagaxley Ifo iyo waliba Xagar Dheere halkaas oo dadka qaxootiga ilaa iyo xilligaasi ay hadda Jumcada Qurumaha ka dhaxaysa UNHCR gacanta ugu haysay noloshooda dadka qaxootiga ayaa intooda badan dadka qaxootiga Soomaaliyeed ayaa halkaasi kaliya waxay ku haystaan nabadgelyo iyo caafimaad ayadoo waliba ay intuba tahay mid si liidanayso marka laga reebo ammaanka oo dawladda Kenya ay gacanta ku hayso Maxamed Faarax Shire Universal TV Garissa